haddaan ku warramo wixii waayahayga wacanay adiga ku sawiro maxay dee Man City iyo Guardiola wax u hadhay ma laha habeen axankooda iyo agaskooda lagu qaaday carrada Talyaani gudaheeda siday ahayd sidii laga filanayay iyo sidii loogu xisaabtamayay midkeedna isku sadmay noqon laba sar ayaana loo kala jaray markay carrada Talyaani cagaha dhigeen xaajadu iyo xaalku wuu ka sii daray meeshii xumaydna waa maraya beeb ma sidan ayaa wakhtigu inuu nagu simo aynu xaadiru naho indhaheena ku arkayna daldalasho iyo dhoollacadayn fara badan kadib waayuhu ma dhabanays hays iyo indha taagtaag bay ku soo hadheen caqliyaddii muhindisnimadii cabqarinimadii timuhu uga daateen ma wakhti aanay shaqaynayn taariikhdan casrigaa baynu joognaa hoogi waayo go'ay ayaa xaalkoodu yahay go'ayoo go'ay ma haddaan sii go'ay muuyii xilli may go'een waata la isweydiinayo ma ceelashii saliiddee la sarifanaya biilka laga qaadanayay miyaa tuumbooyinku xidhmeen iyo dhuumuhu aan kulanka gudagallo Juventus ayaa soo afjartay mashaakilkeedii iyadoo Man City 2-0 ku garaacday kulan ka tirsan Champions League si gaara isha loogu hayay Dusan Vlahovic iyo Weston McKennie ayaa shabaqa Man City soo taabtay qaybtii labaad ee cayaarta weyneyd ee ka dhacday carrada Talyaani labada kooxood waxay lahaayeen min 8 dhibcood waxaanay ka dhibtoonayeen horyaalada maxalliga ee xilli ciyaareedkan oo mushkilad uga dhexaloosnayd cadaadiska ugu weyn kooxda ka dhisan Turin waxa uu ahaa Andrea Combiaso Nico Gonzalez Melek lagu daray Bremen iyo xidiga kale Kabel ayaa seegay kulankan iyadoo Weston McKennie iyo Douglas Luiz ay ku soo laabteen kursiga kaydka City waxaa ka maqnaa Matteo Kovacic Nathan Ake Oscar Bob Rodri halka John Stones iyo Akanji lagu daray Foden kuwaasoo iyaguna dhaawaca waxaana taasi ay sii adkaysay xaaladooda Man City hal mar oo keliya ayay badiyeen 10kii cayaar ee ugu dambeeyey waxaana laga dhaliyey 23 gool kooxdii goolasha firdhin jirtay abyaabtayn xaaladdu markay halkaa marayso isbeeq lemese jasbe aan waxba kama qaban karo fahamta calay shay kullu kalaam ya akhi waqtigiiyo dharaaraha ayaa inagu simay in City oo sidan u dhabadhabaysan beebna dhabanka haysto aynu dhuganno halkaa markay marayso waxay oran jireen qolyihii jaarka iyo afka qalaad lemente devo elied riqe fodesho de la magie dhakadii salaxa ahayd shaqayn weyday habeenada kale ka duwan kulanka si gaara markaynu isu dul taagno 10 shuud oo Juventus tuurtay 5 ayay ku aadisay halka Man City 12 ay ka tuurtay 3na ku aadisay kubadashada Juventus waa 130 halka ay 69 ka tahay kooxda Man City bila faa'iida 310 baas oo ay kulanka sameysay Juve 266 ayaa halkii ku diiradaysnaa ku dhamaaday 698 baas oo ay sameysay Man City oo natiijo la'aan ah 651 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday 21 taakal ayay Juventus sameysay isdaadinta isqubidda iyo weliba isasaydintu waa ka xalaal marka Talyaaniga joogto halka 6 jeer oo kaliya ay dhabanka dhulka dhigeen kooxda City 8 faawul iyo 7 faawul ayaa la kala helay koonayaasha Talyaaniga waa laga ilaaliyo walaba halka ay 6 Man City ka heshay balse madaxyada meesha taagnaaba carra Talyaani ku atirsada oo waa laga diiday waxay noqonaysaa markii tobnaad oo kooxda Man City aanay dhoollacadayn kaga bixin cawska cagaaran wixii ka dambeeyay gurankii Nottingham Forest oo 3-0 ay kaga badiyeen inta kale waa laga badiyey marka laga reebo Feyenoord oo ay barbaro la galeen iyo sidoo kale Crystal Palace beeb nakada salaxa ma sidaas loo haynaya Eliette Daqdelemese Jasper Khonse Fode Lemeshe de Sinfinwa anagu wax kale waan oran karnaa ma jirto way ahaadeen kuwani ya ahaadeen adiguba dhaaraaraad ka qoslaysay dhooshe ayaa loo daaraya wax kaloo ku banaani ma jiraan kulamada kale aan si gaar isu sii dul taagna iyagana habeenka kooxda Barcelona oo dhiman gaadhay madaxdeega Hansi Flick iyo waxyaabihii ka dhacay kulankaasi xilli ay Barca u dagaalantay inay hesho 3 dhibcood kulankana ay guul ku soo dhamaysato Barcelona ayaa wajahday kooxda Borussia kulan xasaasiya muran xoogan ayaa mar kale ka dhashay safka hore kooxda Barca ee Borussia Dortmund wajahayay qaybta hore waa la dhaafi waayay
barbaro goola la-aana labada dhinac. taageerayaashu waxay si weyn u dhaleeceeyeen go-aankii uu tababare Hansi Flick ku qaatay in Inaki Bena uu goolka ku soo bilowda mar kale halkii Szczesny oo khibrad u leh tartanka kaydka isagana la fadhiisiiyey. oo qaybta labaad xamaasad gaara lahaa musasalla u ahaa waxaa hoggaanka qabatay Barcelona oo marti ahayd. ninka maalmahan ay u shidan tahay ee Rafinha ayaana gool u dhaliyey kooxdiisa, kaasi oo aad moodo inuu guud ahaan tartanka Champions League tan iyo markii uu haatani bilowday uu Rafinha ehlu saaxiib, ehlu dayaan, ehlu xidhiidh, ehlu family, ehlu qows, saaxiibul hadaf uu iska noqdayba. laakiin Borussia oo marti loo ahaa waxay ku soo barbaraysay cayaarta rikoodhe uu dhaliyey xidiga weeraryahanka Garasi waa ninka kale ee Rafinha wajahayay ee weliba la mustawaha markaad eegto dhanka jaambaha. Barcelona way guul ka goonayd kulankan ayaa mar kale waxaa hoggaanka siiyey Torres, laakiin mar kale waxaa barbareeyey Garasi oo yidhi anigana habeenku waa habeenkaygii haddii Barsay idinkuba aad sidaasi ku helaysaan. dhammaadka kulanka Barcelona waxay heshay waxaana mar kale shabaqa gaadhay Torres oo cayaarta ka dhigay 3-2 oo ay ku badisay Barca. Barcelona Rafinha ayaa dusha ku sida oo taasi way caddahay maaha mid madmadow ku jiro. Rafinha ayaa haatan si toos ah ugu lug yeeshay goolal ka badan ciyaaryahan kastoo ka ciyaaray Champions League xilli ciyaareedkan 6 ciyaarood 6 gool iyo 2 caawin. waxa uu noqday ciyaaryahankii shanaad ee kala duwan ee 25 gool ku lug yeeshay 5 horyaal ee ugu waaweyn Yurub iyo tartamada UEFA xilli ciyaareedkan. xidigan garabka weerarka ka ciyaara wuxuu sameeyey xilli ciyaareedkan soo kabasho weyn isagoo si lama filaan ah ugu soo baxaya ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee kooxda Blaugrana ee waqti xaadirkan. waxyaabaha sida gaarka kulankan looga calaamadiyey aan eegno Yamal kubaddan hudmadana ee uu cunay xidiga Torres goy waayay ma haddaan sii go'ay. ragna way dadaaleen oo muhiimdisiiyeen oo cabqariyeen oo soo dhiseen oo abuureen oo baan ku yidhi nooc walbaba hibadu ay uga timi. markaasuu isna hooyo dhalin la yidhi markaasuu yidhi hee cabdi cunaaye waa habeenkani oo kale faarax cunaaye inuu yahay waa ay ku caddaatay. Borussia Dortmund xilli ay ka hor timi labada kooxood ee Barca iyo Real midkoodna may mahadin oo Real la shanayay u soo dhiibtay Barcana 3 ayay kaga baxsatay oo waxay ka mid tahay in kooxii Clasico ay sidaas sanadkan ay labaduba mareen. Barca aan intaasi kaga tagno waan isdul taagno kooxda kale ayana la holin laayay kooxda Arsenal oo iyaduna wacdaraysay habeenkii Saka isagana caleemaha loo ruxay iyo habeenay si wacan u karsadeen. sidee xidiga Saka la'aantiisa ay ku noqon kartaa Arsenal mid dhammaystiran. Ganariso guul raaxada ka heshay kooxda Monaco oo ahayd caqabad kale oo way wajahayeen kooxaha Championku. Bukayo Saka ayaa 2 gool u dhaliyey Gunners labada gelina cayaarta taasoo u sahashay Gunners inay kaalmaha sare ee jaambaha soo fadhiistaan. goolka saddexaad ee Arsenal oo yimid dhammaadka kulanka waxaa saxeexay Kai Havertz oo yidhi aniguna kulanka xaadir ayaan ay kadib markuu bedel ku soo galay. Saka ayaa hadda si toosa ugu lug yeeshay 20 gool 21 kulan oo u ciyaaray tartamada oo dhan xilli ciyaareedka 9 gool iyo 11 caawimood. Salah oo 28 ku lug yeeshay waa ciyaaryahanka keliya ee Premier League ka ciyaaray ee ka saameyn badan Saka tartamada oo dhan xilli ciyaareedka 2024-25. Arteta kooxdiisa ayaa haatan ku soo laabatay wadada guusha kadib markii ay barbaro la gashay kooxda Fulham Premier League isbuucan. Tottenham Hotspur ayaanu leenahay Arsenal marka si gaara kulanka Arsenal aan isu dul taagno. 16 shoot oo ay tuurtay kooxda Arsenal 8 ayay ku aadisay halka Monaco ay ka tuurtay 7 shoot 2 ay ku aadisay. kubadaha bogoska lagu taabtay labada kooxood 30 jeer ayay bogoska gudihiisa ay kubadda ku taabatay kooxda Arsenal intii kulanku socday halka 9 jeer oo kaliya ay kooxda Monaco ku taabatay. 532 baas oo ay samaysay Arsenal 417 baas ayaa dhamaystirmay halka 439 baas oo ay samaysay Monaco 377 halkii loogu talagalay ay ku dhamaadeen. koornayaashu waa 3 Arsenal iyo 1 Monaco. faawaladu waa 12 kubadaysashadu 55% waa kooxda Arsenal oo raaxaysatay halka 45% ay ka tahay Monaco. Saka waa lama joojiyaan la sahashan karin waxa uu samaynayo 2 gool 1 assistant 3 shoot 48 taabasho 3 dhuwal iyo 2 taakal xataa habeenka dhabanka inuu dhulka dhigo waa mid uu dhididka iskaga tiraayay waa sax wax kastaaba isleeq le Messi Chaste Ochi فهمت عليه شيء كل كلام يا أخي مدفوع سيدا هيدا يودع يا سندك يا سيدو كلو حلا يابله يركن ميلس لويس إسكيلي وخطر هذا البمبلا يركني يك هذا التونا
yarku yar waa dhaafay maxaynu idhaha yarku hadal male yaa iyo dee muxuu ahaa sheegitaane waa belo kale aanay jirin ha lafa yaraado hadda yaraado waa shaqaysanayaa waa mid ay ka go-an tahay way ugu dhacday arsenaalla sidoo kale arsenaal kooxaha faransa markay ka hortimi 1 Oktoobar kooxda PSG 2-0 ayay u dhiibtay halka ay 11 Diseembarna 3-0 u dhiibtay Monaco caqabad ahayd jaambaha dhex joogtay maxaynu nidhaahnaa markaa hore iyo gadaalba yar iyo weynba yar iyo ku-xigeenba waa ay jiidheen weyn iyo ku-xigeenba waa ay jiidheen curad iyo curad ku-xigeenba waa ay jiidheen faransiiska yaa habeenada waa uu ka duwan yahay habeen ka daran Atlantico way badisay goolkiisii 12aad ayuu dhaliyay xagaagan Atlantico Madrid xidiga Alvarez kaasi oo kooxda City kaga yimi kooxdani waa uu wacdareeyeen Griezmann 2 ayuu ku shubay gelin hore ayay iyagu isxaadiriyeen kooxdan 10kii kulan ee ugu dambeeyay gool mooyaane xataa barbarama yaqaanaan jabhadda uu jabhadku wataa Corneilku waa Simoniye way shaqaysanayaan Alvarez goolashiisaasi kuwa Man City ay u dhitinayso talooma yihiin habeenada waa uu ka duwanaa AS Milan iyaduna way karsatay habeenka oo waa ay badisay waxaanay gaadhay gool muhiima oo sare u soo qaaday halkii loo baahnaana ay ku yimaadeen keliya inay badiyaan kulamada u hadhay ayuunbaa ka xigta inay tartanka baaqi ku sii ahaadaan maamadu habeenada ka duwanaa Tottenham Falatazione ya Barca Tottenham Falatazione ya Arsenal Tottenham Falatazione ya Juve maca Atlanta maca Milano habeenada ka tilmaaman la kala guran og la kala goosan og laguna kala guulaysi og 3 dhibcood habeen gurmad iyo garbaad u baahan tahay ismuujintu xalaal ku tahay inaad dhiig ku daadiso cawska cagaaran mooyaane in aad kala soo noqoto wax kale aanay jirin beeb haragiisa lagu tukaday habeen kale maryaha laga calaashaday waxse looma reeban talyaani wuxuu yidhi carradu waa tali halkani waa sayidatu cajuus gurigeedii waxna lagama samayn karo anigu waxaan ahay maxamed tirike xubintii waa kariska iyo kala haadintii midda xigta intaynu ku kulmi doonno inta ka horraysa saaxiibadaanu jecellahay farahoydin dhaqaaqa tan iyo sarag maqalkeenna dambe sidaa yaa maana allah